way kulanti wanaagsan saaxiib al soo dhawaada waxaan rabaa in ay la wadaago xogta ninka xoolo dhaqatada ah ee lagu dilay hadda deegaanka Taraado ee hoostaga gobolka Hiiraan iyo waliba sidoo kale faafahinada kala duwan halkaasi ka soo baxayda iyo maleeshiyaadkii dilka halkaasi ka geystay ayaan rabaa in halkan kugu la wadaago haddii ay tahay markii ugu horeysay muuqaalku soo gaaro fadlan like gare oo share gare meel dheer nala gaarsi si cadaalad u helo walaalkeena oo maanta dhibana waa maleeshiyada halkaasi ee dilka ugu geystay oo xoolo dhaqatada iska ahaa way soo dhawaada deegaanka Taraado ee gobolka Hiiraan waxa lagu dilay saacado ka hor nin xoolo dhaqata ah oo aan waxba galabsanin waxaana dilkaasi geystay maleeshiya hubaysan oo ka soo jeeda deegaanada Shabeellaha Dhexe iyadoo markaasi wararku ay sheegayaan hadda in markaasi uu nafta dhaafiyay kadibna maleeshiyada dilka geysteen halkaasi ay markaasi ka baxsadeen waxaana lagu magacaabaa ninka markaasi ee la dilay oo xoolo dhaqatada ahaa Cabdullaahi Xuseen Waasuge oo xoolo dhaqato ahaa deegaanka Taraado waa markaasi Taraado ee markaasi gobolka Hiiraan ku dhaqan oo halkaasina joogay ayaana la sheegaya in waqtigan la joogay ee markaasi dirir iyo waliba sidoo kale colaad halkaasi ay ku dhaxmartay isaga iyo waliba maleeshiya oo ka soo jeeda Shabeellaha Dhexe ee halkaasi dilkana si arxan darro ahna loogu dilay wararka kala duwan ee ka soo baxaya ayaa sheegaya in ilaa ay haatan wali wax maamul ah misana dawlad ah aysan xogtaani si rasmi ugu daba tagin misana aan markaasi ka hadlan xaaladda dilka ninkan xoolo dhaqatada ahaa ee ku noolaa markaasi deegaanka Taraado ee gobolka Hiiraan muddooyinkii ugu dambeeyay dilalka iyo waliba sidoo kale afduubka dadka xoolo dhaqatada ee masaakiinta ayaana laga dareemaya deegaanadaasi tan oo waqtigan la joogayna u muuqato in ay tahay mid aad markaasi u kicin karto colaad sansaaneed misna dagaal ama mid beeleedba oo laga cabsi qabo in markaasi ay kacdo maadaama hadiise aanan laga hadlin dhibaatooyinka kala duwan ee halkaasi laga geysanayo ma aha markiisa ugu horeysay dilal noocan oo kale misna afduubsan oo kale oo ka dhaco misna ay geystaan maleeshiya hubaysan haddana aan markaasi si rasmi ah looga salgaarin laakiinse waa dhacdooyin fara badan oo joogtana naqday maalinba meel ay markaasi ka daaran tahay misna ay ka geysanayaan dilalka noocyadooda kala duwan taasi oona loo sabaynayo amni darrada iyo waliba sidoo kale cabsida dadku ay markaasi ay wajahi karto wali kama aysan hadlin maamulka Hiiraan iyo waliba sidoo kale maamulka markaasi ee Shabeellaha Dhexe halkaasi intaba laakiin dilka ayaana saacadihii ugu dambeeyay si weyn baraha bulshada u haystay ninkan xoolo dhaqatada ah ee aan markaasi waxba galabsan halkaasina sida arxan darrada ah ee loogu dilay waxa muuqata in waqtigan la joogay ay yihiin kuwa markaasi ay si dabar go'ay laakiin mar kale ayay u muuqataa in ay soo ifbaxayaan dilalka iyo waliba sidoo kale maleeshiyadka noocyadooda kala duwan halkaasi ay ka geysanaysa gobolka Hiiraan iyo waliba sidoo kale gobolada kale ee Soomaaliya ayayna saan oo kale hore ugu dhacday inkastoo markaasi muddooyinkii ugu dambeeyay hakad ay ku jireen waa dilkii usbuuc gudihiisa ee markaasi maleeshiya hubaysan ay geysato misna loo geysto qof xoolo dhaqata ah oo masaakiina aan waxba galabsanin